dadku leeyihiin hadaf ay u nool yihiin hadafku waa gool ama waa yool ama waa meel la hiigsanayo qofka bini aadamkii markuu hadaf saxa leeyahay oo uu hiigsanayo oo uu rabo inuu xaqiijiyo macno iyo qiimo ay leedahay qofka hadduu nolosha hadafkeeda garan waayo iyo yoolka uu ku socdo qiimo ma leh waalid iyo miyirqabka waxa u dhaxeeya waxa ka mid ah ahdaafta ninka waalani hadaf ma leh iska socdaa wuu warwareegaa wuu soo noqdaa wuu sii socdaa meel looma socdo miyirqabkuse waa qof ahdaaf leh oo meel raba inuu xaqiijiyo nolosha marka si guud loo eego hadday hadaf leedahay oo dadku waxay rabaan inay xaqiijiyaan ay jirto macnay samaynaysa haddii se aanay hadaf lahayn mahmaa la dhaldhalaaliyo qiimo ma leh yani markab haddaad imka wax walba saarto laakiin aanu buusale meel laba u soconin baddu iskaga dhex jirayaa un la yidhaahdo waa laa macna lahu wuxuu markuu buusalaya itijaah leeya uu meel u socdo hadaf leeyahay ayuu qiimo leeyahay nolosha bini aadamkuna waa sidaa waa inay ahdaaf leedahay waa ilaa ilaahay baa wuxuu leeyahay afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaa u malaynaysaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inaanu idin abuurnay cabath dheeldheel waxaan qasdiba laga lahayn إلهي سبحانه وتعالى بوحله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا عركنية نركنية نرشتنية وحن ما ننابور باطل لعب لهو لكن إلهي وحله ذلك ظن الذين كفروا كاسوا ملها كوا قالوا بيبا لله سبحانه وتعالى qofka mu'minkii markaa nolosha hadaf uu ka leeyahay uu rabo inuu xaqiijiyo hadafkaasi hadduu ka qaldamo yoolkaasi hadduu qaldamo noloshu qiimo ma leh shabaabnimaduna inta badan wakhtigan tirada badan le faadiga ah iyo qumuud alahdaaf dadku hadafku aan u caddaanin ayaa waxay ka dhigtaa noloshooda lacib iyo lahw iyo dheeldheel iyo soo jeed iyo cayaayir noloshii hadaf leh ayaa qiimo leh nolosha kale waa taafi waa wax liita hadafka weyne qofka waa inuu ilaahay ridihiisa ama raalli ahaanshihiisa gaadho حويان إنه جنة حقيقية سيدو قلي لها العذاب كبد بعده قولك كما ضمبيسته قفك مؤمنك والراض عيني يواكا وحو إنه ليواكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بإلهي سبحانه وتعالى دنت قفك مؤمنك وليه مركز حويان إن وحد حده وحد حده سيدو قبد بعد لها عذاب إلهي وحد حده سيدي وهلي لها إلهي سبحانه وتعالى رالي نرشو قبل بوا انت قفكي هدفك كو قوليسته اي حقيقين كرا ايا نرشو فهمي قفكي آن مسألة دا سي حقيقين كرينينا هبا يراتين نرشو ما فهمي اما ما قرنين ماشا وكو صعده ولذلك عليه الصلاة والسلام صحابته وحكوا ربي إنه هدف كان رادعيان وأنا وحكى ليسكودي